gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri ayaa maanta markii uu horeysay ka hadlay khilaaf ka dhex taagan xisbiga xaakimka kulmiye waxaanu sheegay in loo baahan yahay in lagu kala baxo sharciga iyo nidaamka xisbiga u yaal qodobka kale hadallo miidiyaha ka soo baxay oo ayaa soo yeeraya oo xisbiga kulmiye waxaan leeyahay wax waliba sharci bay leedahay qaab loo maray leedahay hoggaanka xisbiga marka uu shiro ama cidi marka ay shirayso kooram bay isku xukuntaa waxa isku xukuntaa majority waxaan leeyahay hal lagu dhaqmo xeerka iyo nidaamka u yaala xisbiga warasaabka gobolka ayaa waxa uu hambaliyo ku aadan 27 May u diray bulshada reer Somaliland 27 May waxa weeye maalintii sida geesinimada leh loo soo galay Burco urkiyaasana ay magaalada Burco uga dhex tooseen runtii waa maalin ku weyn ummadda waxaan u hambaliyaynayaa dhammaanba ummadda reer Somaliland meel kastoo ay joogaan sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri ayaa waxa uu fariin u diray xildhibaanada golaha deegaanka Burco ee maalmuhu dambeeyay oo ka dhex taagnaa khilaafka iyo muranku qolada golaha deegaanka ayaantii hore ee ay diin hash ayaantii dawladda ku celisay waxaan leeyahay hal joojo dhaleeceeyo ilaa hadda ma hayo wax qoraal oo la weelayna gudoomiyaha gobolka waa halkaas ma tagayaan miidiyaha la iska tagayay afarba meel ka hadlaya asraar baa leeyahay waxba uma tartay dadka jaawiraysa inkii wax isku haya wixii qoraal ku keenayo Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco.